بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما تلاده oo ay arbaca soo galayso koob iyo soddonka bisha March sanadka 2026 oo ku beegan 12 bisha Shawaal sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijkan aan idinkugu hayno waxaa kamid ah waa ururka xisbullah oo har iyo hooyada u diiday Israa'iiliyiinta ku dhaqan deegaanada waqooyi isla markaasna jilibka u aastay ciidamada Israa'iil ee duulaanka ku ah koonfurta Lebanon weeraradii ugu dambeeyay dagaalamayaasha xisbullah waxay caawa ku beegsadeen magaalooyinka Haifa, Nahariya iyo Akka halkaasi oo korontadu ay ka go'day qaybo badan duqeymahan ugu dambeeyay ayaa dhacay iyadoo Netanyahu uu jeedinayay khudbad uu ku faanay in dharbaaxa kulul ay ku dhufteen Iiraan iyo Xisbullah sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa qabiir arrimaha militariga oo ka hadlaya sida Israa'iil ay ugu socoto inay dhiiqa ku gasho koonfurta Lebanon wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan oo qiray in xiriir u dhex maray xubno ka tirsan maamulka Trump haddaba maxay ku aadan yihiin xiriiradani warbixin ayaan idinkaga haynaa sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayno waxay ku aadan tahay maamulka Trump oo loogu baaqay in Mareykanka ay ka eriyaan wiil uu dhalay Netanyahu isla markaasna la geeyo furimaha hore ee dagaalka yaa fariintan jeedinaya maxayse ku aadan tahay maxaase u sababa sheeko la yaab leh ayaan idinkaga haynaa amuurtan dhammaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada mar kale daawadayaal waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka qaybta hore ee barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa weerarada iyo weerar celiska u dhexeeya militariga Israa'iil iyo ururka Xisbullah ururkan reer Lebanon waa laga yaaban yahay xitaa qubarada arrimaha militariga ayaa ka hadlaysa saacadii ugu dambeeyay weerar joogta oo isku jira sawaariikh gantaallo ciidamo jidka loo galay taangiye la beegsaday ayay wadaan waxaan idin haynaa qabiir arrimaha militariga oo ka hadlay arrintan isla markaasna sheegaya ciidamada Israa'iil koonfurta Lebanon inay ku galayaan dhiiqo laakiin marka hore waxaynu ka hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay ee weerarada ururka Xisbullah iyo waxa imika laga soo tabinayo ururka Xisbullah ayaa xoojiyay duqeymaha sawaariikhda iyo diyaaradaha droniska loo adeegsanayo weerarada iyo dagaalka tooska ama masaafada ibarka ee ka dhanka ah ciidanka Israa'iil ururka reer Lebanon ayaa sheegay in weerar kala duwan ay qaadeen galabta iyo caawa waxaana kamid ah weerar gantaalo fara badan oo ay ku harqiyeen gobolka Jaliil iyo xeebta magaalada Haifa ee waqooyiga Israa'iil telefishinka kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay deegaano kamid ah Haifa iyadoo siiriga digniinta ka bixiya gantaalada laga maqlay deegaanada Safed Karmiyal iyo Kiryut ee waqooyiga Israa'iil shabakada wararka Walla ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxay sheegtay in duqeyntan ay ahayd mid xooggan oo lagu qaaday waqooyiga Israa'iil iyadoo xitaa aysan dhicin wax digniin ah kanaalka toddobaad ee Israa'iil ayaa isna waxa uu sheegayaa in ugu yaraan 20 gantaal la soo riday waxaana sidoo kale jira warar sheegaya in guud ahaan tan iyo maanta ururka Xisbullah uu soo qaaday ilaa iyo 50 weerar oo gantaalo kala duwan ah dhanka Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa muuqaal horey loo sii duubay caawa waxa uu kaga hadlay xaaladda gobolka gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Iiraan iyo Xisbullah waxa kale oo qiray in Iiraan weli ay awood u leedahay inay gantaallo iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ku weerartay Israa'iil laakiin waxa uu sheegay inaysan ahayn kuwa halis gelinaya jiritaanka Israa'iil waa sida hadalka u dhigay Netanyahu ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalku fursad u siinayo Israa'iil inay samaysato isbahaysi cusub oo gobolka ah oo ka dhan ah Iiraan isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in dhawaan la shaaciyo
isbahaysigaasi oo uusan caawa sheegin wuxuu ka hadlay dagaalka koonfurta Lubnaan waxaana uu sheegay in Israa'iil ay qorsheynayso inay dagaalka balaariso gaar ahaan aagga ammaanka laakiin arrinta la yaab kale ee warbaahinta Israa'iil ay caawa ka hadlaysa waxay tahay iyadoo hadalka uu jeedinayay Netanyahu ayaa ururka Xisbullah waxa uu sawaariikh ku garaacay goobo kala duwan waxaana la sheegayaa in ururka uu beegsaday magaalooyinka Haifa, Nahariya iyo Akka war ka soo baxay ururka Xisbullah ayaa waxay ku sheegeen in ay beegsadeen goobo ciidan iyagoo tilmaamay in ay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah militariga Israa'iil haddaba dagaaladan ka socda koonfurta Lubnaan waxay ka macno yihiin in dhiiqa ku galayso Israa'iil waxaynu eegaynaa warbixin telefishinka Al Jazeera oo ka diyaariyay arrintan oo uu ka hadlayo qabiir arrimaha militariga iyo ciidamada warbixintu waxay ku bilaabatay qasaaraha ciidamada Israa'iil ay kala kulmayaan koonfurta Lubnaan ayaa waxay ka turjumaysaa isbedel ku yimid qaabka dagaalka dhanka dhulka iyadoo dagaalku u wareegay qaab ka duwan kii hore oo markii hore ahaa duqayn culus waxaana imika uu wareegay iska horimaad juqraafi oo aad u adag isbedelkan ayaa warbixinta waxay sheegaysaa in uu siinayo Xisbullah fursad ballaaran oo ay ku adeegsato xeelado ku salaysan weerar gaadma ah iyo markaasi dagaal masaafo dhow ah xaaladan isagoo ka hadlayay qabiirka arrimaha militariga General Hassan Joni waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in dilkii ugu dambeeyay ee 4 askari oo Israa'iiliin ah uu yahay natiijada la filan karo oo ka dhalatay jihada dagaalka iyo isku dayga lagu sii qoto dheeraynayo gudaha dhulka Lubnaan in Israa'iil ay u sii gasho subaxnimadii hore ee maanta ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in sarkaal iyo 3 askari la dilay 3 kalena la dhaawacay intii lagu jiray dagaal ka dhacay koonfurta Lubnaan walow warbaahinta ay sheegayso qasaaruhu intaas inuu ka badan yahay wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa sheegay in tirada askarta Israa'iil ee lagu dilay furinta Lubnaan imika ay gaartay 10 tan iyo markii dagaalku uu bilowday isagoo la hadlayay Al Jazeera Hassan Joni wuxuu tilmaamay in marxaladii hore ee howlgallada ciidamada Israa'iil ay ku tiirsanaayeen horumar gaabis ah oo ku salaysan duqayn xooggan iyo burburin ballaaran oo lagu sameeyay tuulooyinka ka hor intii aan la gelin taasi u oggolaanaysa buu yiri ciidamada dhaqdhaqaaq meelaha furan iyadoo markaana ay yaraayeen isku horimaadada tooska laakiin qaabkan ayaa isbedelay buu leeyahay qabiirku maalmihii ugu dambeeyay iyadoo ciidamadu isku dayayaan in ay ballaariyaan howlgallada si ay si qoto dheer ugu galaan gudaha Lubnaan taasi oo la jaan qaadaysa hadallada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee ku saabsan ballaarinta waxa Israa'iil ay ku tilmaamtay aagga difaaca sida uu sheegay Joni isbedelkani wuxuu ku qasbay ciidamada Israa'iil in ay ka howlgalaan deegaano aad u adag gaar ahaan qaybta bari iyo agagaarka webiga Ladaani iyo dooxada Waadi Al-Hajr halkaasi oo juqraafiyadu noqotay arrin go'aamisay maareynta dagaalka generaalku wuxuu sharaxay in deegaanka caynkaasi uu oggolaanayo dagaalamayaasha Xisbullah inay ka faa'iideystaan dhulka oo ay fuliyaan weerar gaadma ah oo ku salaysan dagaal masaafo dhow taas oo inta badan dhacda in ay sidoo kalena la sheegayo ay sababayso qasaaraha ciidanka Israa'iil dabeecadda weerarka ayaa muujinaya in ay jirto sahmin iyo kormeer taxaddar leh oo lagu hayo dhaqdhaqaaqa ciidamada Israa'iil sida warbixintu ay tilmaamayso waxaana qabiirku uu aaminsan yahay in arrintan ay ka turjumayso awoodda Xisbullah ee xakamaynta goobaha dagaalka iyo maareynta isku horimaadyada sida uu sheegay qabiirkan arrimaha militariga xeeladan horey ayaa loogu adeegsaday marinka Gaza xilligaasi oo iska caabinta Falastiiniyiintu ay lahaayeen gacanta sare ee furimaha dagaalka iyagoo si weyn isu diyaariyay ayna kula socdeen dhaqdhaqaaqa ciidamada Israa'iil kadibna fulinayay weerarka koowaad oo ay ku xigeen beegsiga ciidamada gurmadka ah waxaana uu sheegay taas inay muujinayso geesinimada dagaal iyo awoodda lagu maareeyo dagaal toos ah oo ka socda dhul aad u adag General Joni waxaa sidoo kale arrintan uu la xiriiriyay arrimo nafsi ah
waxa uu sheegay in xisbullah ay u aragto dagaalkan mid ku xiran jiritaankeeda isla markaasna uu ka dhashay duqaymihii joogtada ahaa ee Israa'iil ay fulinaysay muddadii la soo dhaafay taasi oo kordhisay adkaysiga dagaalka iyo ka faa'iidaysiga juqraafiyadda ama dhulka marka laga hadlayo saameynta qasaaraha General Hassan Joni wuxuu carabka ku adkeeyay in dhimashada iyo dhaawaca askartu ay tahay mid xasaasi ah oo ku jirta xisaabta Israa'iil isagoo xusay in bulshada Israa'iil ay leedahay ama ay xusuusanayso xusuus la xiriirta qasaaraha weeraradii hore ee ka dhacay koonfurta Lubnaan taasi oo kordhin karta buu leeyahay cadaadiska saaran hoggaanka dhanka siyaasadda iyo kan militariga iyagoo howlgalana dhulka ka sii wada ciidamada Israa'iil ayaa la kulmaya qasaare ka dhalanaya duulaankan iyadoo gudaha waddanka Lubnaan ku sii siqaya halkaasi oo qasaaraha dagaalka toos u sii kordhayo isla markaasna ay sii xoogaysanayso awoodda xisbullah ee maareynta dagaalka iyadoo loo marayo weerar gaadma iyo xakamaynta goobta iska horimaadka telefishinka kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa soo xigtay ila wareedyo sheegaya in askartii xalay lagu dilay masaafe ibrah dagaal ay la galeen dagaalamayaasha xisbullah isla markaasna waxaa la xusay in dagaalamayaashu ay isticmaalayeen gantaalada lidka gaadiidka gaashaaman xilli ay socotay isku dayga daadgoreynta meydadka iyo dhaawaca askarta taasi oo adkaysay baa la yiri howlgalka gurmadka telefishinka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Israa'iil ay adeegsadeen diyaaradaha dagaalka taangiye iyo madaafiic si ay u beegsadaan weeraryahanada xisbullah isla markaasna ay u sugaan ka bixitaanka ciidamadooda goobta dagaalka halkaasi oo lagu soo waramayo in ciidamadu dib ay uga soo gurteen intaynu barnaamijka ku jirnay war hadda soo dhacay ururka xisbullah ayaa waxa uu sheegay in taangi nooca Merkava ay ku gubeen magaalada la yiraahdo Reshivat ee ku taal koonfurta waddanka Lubnaan marka khabiirku wuxuu leeyahay dagaalkan markii hore wuxuu ahaa dagaal duqayn Israa'iil ay sameeysay xisbullah marka hadda iyaga dagaalka maamulaya bacdama la isku jira masaafe ibra arinta kale oo khibrada ka hadlaysa waxa weeye waxa leeyahay askarta Israa'iil ee khibrada dagaalka lahayd Gaza ay ku soo dhamaadeen dagaalkan hadda koonfurta Lubnaan iyadoo markii hore Israa'iil ciidan yar ay haysay ayaa haddana waxa ka qaybgalaya dhalinyaro yar oo khibrad dagaal aan lahayn meeshana waxa ka dagaalamaya ciidamada khaaska ah ee xisbullah ee yiraahdo Ridwan oo ah ciidan aad u tababaran labadii sano ee la soo dhaafay waxa bajoojinta ay jirtana waxa la yiraahdo isdiyaarinayeen Israa'iil marka waxa leeyahay dhiiqay ku galaysaa koonfurta Lubnaan waa sida qubarada militarigu ay isku raacsan yihiin waxaan u gudbaynaa goordhow warbixin la xiriirta wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo qiraya wadahadallo toos ah in ay la yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Trump maxaa laga wada hadlay waardii faahfaahin doonaa gabar saxafiyada oo haysata baasaboorka Mareykankana waxa lagu afduubtay waddanka Ciraaq sidoo kale waxa soo baxday xog cusub oo sheegaysa ilaa iyo 350 askari in askarta Mareykanka dhaawac ay ka soo gaareen dagaalkan ka socda bariga dhexe iyo waliba qodobo kale laakiin intaan u gudbin aynu ku hakano qadar xayeysiina kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta waa Talaado waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinada iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa oo aanu ka hormaraynaa khasaaraha ay isu geysteen weeraro goordhow ay markaa isku qaadeen Iiraan iyo Israa'iil haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo wixii laga qoray ayaan idin la wadaagayaa marka hore waxaynu ku hormaraynaa Iiraaniyiinta iyo weerarada ay qaadeen haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan goordhow war soo saaray waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen magaalada Tel Aviv iyo magaalada la yiraahdo Bi'ru Sab'a ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay fuliyeen howlgallo ay markaasi ku sameynayaan inay ku weeraraan meelaha Mareykanka ama saldhigyada Mareykanka iyo kuwa Israa'iil haddaba weerarkan wuxuu ahaa mawjadii 88aad howlgalka loogu magac daray Al-Wa'd As-Sadiq 4 dhanka kale waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen
goob ay ku kulansanayeen madaxda wasaaradda arrimaha gudaha Israa'iil sidoo kale waxay weerar ku qaadeen goobo kale oo halbowlayaal magaalada Tel Aviv iyo Be'er Sab'a saacadihii la soo dhaafay dufcadii 88 ee Al-Wa'd As-Sadiq 4 ayaa la qaaday meelo kala duwan lagu duqeeyay waxa samaynay waxa weeraradaas qaaday marka Tel Aviv iyo Be'er Sab'a ayaanu ku beegsanaynadeen waxa soo haray marka Israa'iiliyiinta iyaguna waxay sheegayaan inay weeraro ku jawaabeen haddaba wararkii ugu dambeeyay iyagana ay soo saareen goordhow waxay leeyihiin ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen goobaha gantaalaha difaaca hawada ay yaalaan ee magaalada Tehran haddaba dhanka kale waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen goobahaas hanaanka difaaca cirka Iiraan u yaalo ee magaalada Tehran waxaana ay sheegeen sidoo kale inay bartilmaameedsadeen warshado hubka iyo waxyaabaha kale ay ku sameeyeen Iiraaniyiinta waxaana la sheegay dhanka kale in meelaha la beegsaday ay ku jiraan goobo sawaariikhda balastiga lagu sameeyay iyo hubka kale ee horumarsan sida la sheegay magaalada Tehran marka nin walba ninka kale wixii uu soo gaaro ku dhufaraya kuwan waxay leeyihiin warshado iyo meelaha hubka lagu sameeyo garaacnay kuwana waxay leeyihiin Tel Aviv iyo Be'er Sab'a iyo goobo ay kulan ku lahaayeen saraakiisha arrimaha gudaha ayaan anaguna baabiinay marka qolo walba waxa sheeganaysa dhanka kale Israa'iil ayaa maanta kaliya inta kaga dhaawacantay weerarka sheegtay waxa la yaab leh laakiin wax dhinta dhab sheegayaan sheeko cajiib waay haddaba markaan tuso wakaalada wararka Anadolu waxay leedahay weerarada Iiraan ay qaaday waxa la sheegay inay ku dhaawacmeen 121 Israa'iiliyiin maanta gudaheed waxayna tirada guud ee dhaawaca ay ka dhigaysaa Israa'iiliyiinta tan iyo markii dagaalku uu bilowday 6130 ujeeda wax dhinta dhan sheegayaan 121 qof ku dhaawacantay waa weeraradii hadda Iiraaniyiintu ay ka hadlayeen ay lahaayeen Tel Aviv iyo Be'er Sab'a ambeerka ka tunayraadeen marka 121 kaliya naga dhaawacmay waxay yihiin lama sheegayo wax dhintay lama sheegayo hawshaas halka marka waxay yiraahdeen xisaabta guud dadka naga dhaawacmay tan iyo markii dagaalka uu bilowday 6130 qof oo Yahuuda ayaa ku dhaawacmay yiraahdeen dagaalka intii uu socday marka hawsha iyaduna halkaas ay kaga gudbaynaa wararka kale xiisaha leh ee soo kordhay tan iyo intaanu kala maqnayn waxa kamid ah dawladda Talyaaniga ayaa diiday dalkeeda inay soo maraan oo ay ku hakadaan diyaaradaha dagaalka ee u socda bariga dhexe si ay dagaal halka uga geystaan waa diidnay horay dawlado kale u diiday arintaas oo ay ka mid yihiin Faransiiska Spain iyo waxaas marka maxaa loo dhahayaa diyaaradaha dagaalka ee u socda bariga dhexe ee dagaalka u socda sababtoo ah Talyaaniga de wuxuu ku jiraa NATO saldhigyada Mareykanka iyo waxaan iyo kulli way degan yihiin Mareykanka marka diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay way imaan kartaa laakiin midda u socota bariga dhexe oo dagaal inay u aadan rabto kaliya la diiday saas waa marka ina fahamno diyaarad kasto oo Mareykan leeyahay oo dagaal oo maartay Talyaaniga imaanaysa lama diidin mana la diidi karo isku isbaaysi ku jira gaashaanbuurta NATO marka diyaaradda Mareykanka ee dagaal u socota ayaan diidnay marka arikaas marka iyaduna Mareykanka way ka careysiisaa leeyahay ninkii Trump ahaa aad uga carooday leeyahay inay Talyaanigu talaabada qaadaan haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay Itaaliya waxay diiday inay ku soo degaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka kuwaas oo ku sii socda bariga dhexe deegaanka jasiiradda la yiraahdo Basqaliya oo Talyaanigu u leeyahay halka ma ku deegi kartaan yiraahdeen oo marka halka ma aadi kartaan jasiiradaasi warka waxay markaasi muhiim ugu tahay safarada diyaaradaha ka imanaya dhanka Mareykanka ee u socda bariga dhexe inay halka ku hakadaan way diideen Talyaaniga dhulkeena ma ku deegi karto diyaarad halkaas u sii wadatideen marka hawsha iyaduna waxa la sheegayaa inay arrin kala tahay Talyaaniga oo aad ugu dhawaa Mareykanka isaguna wuxuu bilaabay nooc min al-gadood oo la diidan yahay hawsha marka
hawshaasu halkaasay maraysaa. dhanka kale waxaa leeyahay maraykanka Trump wuxuu leeyahay Yurub waa ku qaaliyoobay gaaskii wixii oo dhan iyo gaaskii maaragtay diyaaradaha iyo wixii dhan waa qaaliyoobeen inay wadadii furtaanna waa diidan yihiin oo Hormuz meeshaasaa xiran marka dee annaga yeesay waxbana weydiin inuu dhahay marka wuxuu iska sheegaa bogta halkaas marka iyaduna wararkaas waa cusub yihiin. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii labaad. maanta waa Talaado qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu maraynaa. haddaba qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa Iiraan waxay sheegtay in ka badan 50 qof oo ay ku tilmaantay inay yihiin jaajuusiin dabadhilifa oo la shaqaynayay Maraykanka iyo Israa'iil inay qabteen oo gudaha dalka Iiraan ay ku qabteen. haddaba markaan idin tuso akhbaarka arrinka ku saabsan waxaa la xiray 54 qof oo la sheegay inay ahaayeen camiil ama dabadhilif Maraykan iyo Israa'iil u shaqaynayay. haddaba wakaaladda wararka ee Faris ayaa waxay sheegtay iyadoo soo xiganaysa wasaaradda sirdoonka Iiraan in 54 camiil ah ama dabadhilifyo ah oo Maraykan iyo Israa'iiliyiin la shaqaynayay lagu kala qabtay 4 gobol oo ka tirsan gudaha dalka Iiraan. marka 54 waxa laga soo kala qabtay 4 gobol oo gudaha wadanka ah waxaana la sheegay inay ahaayeen qolooyin u shaqaynayay oo ay adeegsanayeen Maraykanka iyo Israa'iil. haddaba warbixinadaas ayaa ugu muhiimsanaa wixii warar soo kordhay tan iyo intaynu kala maqneen. haddii alla idmo wixii warar soo kordha barnaamijyadeeda dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan inagoo mar walba idiin soo gudbina macluumaad iyo warar xaqiiqa waanu ka soo xiganayno warbaahinta. haddaba like garay oo share garay haddaad cusub tahayna subscribe ka iloobi YouTube ka Facebook na follow garay. nabadgelyo.